wax sahlan maaha in jawaab degdeg ah aan markiiba u keenno su'aasha ah maxay dumarka u ooyaan marka xaalad qabsato. Allah subxaanahu wa ta'aala ayaa inaga og oo abuuray, hase yeeshee waxaan idin soo gudbinayaa sheeko aan doorbiday in aan idinla wadaago, waxayna ku bilaabanaysaa sidan. balse sheekada intaan bilaabin waxaan kaa codsanayaa channelka haddii aad ku cusub tahay inaad subscribe saarto, sidoo kale video like noo saar. wiil yar ayaa weydiiyey hooyadii, maxaad u ooyeysaa? hooyadii ayaa ugu jawaabtay wiilkeeda, maxaa yeelay waxaan ahay qof dumar ah. ma fahmin ayuu ku yiri wiilkii. hooyadii inta ay soo qabatay oo ay laabta gelisay ayay ku tiri, hooyo adiga oohin kuguma ogi, weligaa ka digtoonow. wiilkii ayaa u tagay aabihii wuxuuna weydiiyey isla su'aashii uu hooyadii ka tusaale qaadanayo. wuxuuna yidhi, waa maxay sababta hooyaday ugu ooyeyso ujeedda la'aan? aabihii ayaa ugu jawaabay, dhammaan dumarka ayaa sidaas ka ah. wiilkii wuu weynaaday isagoo weli jawaab u helin sababta dumarku ooyaan. maalin ayuu u tagay nin sheekh ah wuxuuna weydiiyey su'aashii maxay dumarka la ooyaan ujeedda la'aan. sheekhii ayaa ugu jawaabay, dumarka Allah subxaanahu wa ta'aala ayaa si gaar ah u abuuray, wuxuu ka yeelay kuwa garbahooda adag yihiin si culayska adduunka ugu xambaaraan, weliba u fududeeyay iyagoo ku dhibtoon. wuxuu kaloo Alla siiyey dulqaad iyo samir xilliga dhalmada iyagoo marar kala duwan umula carruur badan. wuxuu kaloo Alla siiyey adeeg horu socod leh, taas oo aan rag la siin. ku darso oo waxay leeyihiin dumarka maskaxda xanaanaysa ubadka iyo qoyska xilli walba, xitaa iyagoo xanuunsan. maamulka qoyska cid uga wanaagsan ma laha, mana ka cawdaan taasi. sheekhii oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi, wuxuu kaloo la siiyey dumarka jacayl ay jecel yihiin carruurtooda, weliba waxaa ku beeran qayb tilmaamta marxaladda ubadka xitaa haddii uu dhaawac soo gaaro. dumarka wuxuu Allah subxaanahu wa ta'aala siiyey laab furnaan ay ku qaabisho ninka qaba, iyadoo xafida baahiyihiisa oo dhan iyo waxyaabaha uu ku xun yahay, iyadoo ilaalisa qalbiga siigeeda. dumarka wuxuu Allah subxaanahu wa ta'aala ugu deeqay xigmad ay ku ogaadaan ragga kiisa xun iyo kiisa fiican, laakiin mararka qaarkood way imtixaanaan iyadoo eegaysa awoodiisa. ugu dambeyn ayuu u sii raacay sheekhii, wuxuu Allah subxaanahu wa ta'aala siiyey dumarka ilin ay daadiyaan si hagar la'aan ah. ilintaas waa kuwada si gaar ahaaneed u isticmaasho markasta oo ay u baahato. ma aragta wiilkaygiiyow, quruxda dumarka kaliya ma aha dharka ay xiran tahay, habka tinta madaxeeda u diyaariso ee quruxda dumarka waa midda laga arko indhaheeda, maxaa yeelay wadada tagta qalbigeeda ayaa ah meesha jacaylku degan yahay.